رمضان مبارك مالك سو الدنيا كي جوجتان كنا سو دواده قصه عجائبه nin asagoon muslim ahayn mucjiso ilaahay uu tusay mucjisadaasna ay gundhig u noqotay inuu islaam noqdo waa qisooyinkeenii cajaa'ibka ahaa ee marka aad dhegaysatid xaajo ay ku istaagayso dareen ay ku gelinayso maxaa yeelay qalbigaaga waxa ku jira ayaa lala hadlayaa oo ah tawxiidka sheekadaan waa sheekooyinka dhif iyo naadirka haddaba waxba yaaran wardin ku daaline iga hooya waxaan ugu talagalnay bisha Ramadaan sheekooyinkan codsi idinka yimid muuqaal aan dhawaan soo gelinay awgeed waa idinkaga mahadcelinaynaa waxaan taas ku ay tusaale u tahay Brit Somali TV bulshadu inay leedahay oo markaas waxaad idinku doontaan ee wanaagsan aanu soo deynayno waayahay magaciisa waxaa la yidhahdaa Julian waxa uu booqday 50 waddan oo kala duwan waxa uu ahaa berigii hore fanaan muusikiista caana ayuu ahaa markii hore haddana wariye ayuu isku bedelay wariyanimadii ayuu ku caajisay wuxuuna uga diga rogtay masiixiyadda inuu qaato maalma hadduu joogay qalbigana ku qaboobi waayo waa soo hadalka u dhigaya odageena buuda la yidhaahda ayaan u diga rogtay ayuu yidhi halkaas ayaan bariya ku dakeeyey waxaan barida saacado badan ku fadhiyo meditation sameeyaba qalbiga waa u dhaadhici weyday waa hadallada laga hayo weeyaan waan idin maqashiin doonaa dhowaan isagoo hadlaya laba arrin oo aan caadi ahayn ayuu ka hadlayaa aan jeclahay inaad ku farxi doontaan haddii la yidhaahdo stay tuned for that now xaaladdeedu halkaa maraysa ayaa waxa dhacday buu yidhi 9/11 weerarkii maraykanka lagu qaaday daarihii mataanaha ahaa ee la dumiyey ee dad ka badan 3,000 oo qof oo waxba galabsan ay ku dhammaatay iyo musiibooyinkii ka dambeeyay caankaan oo ogtiin si kastaba ha ahaatee 9/11 ayaa dhacday buu yidhi Dubai ayaan joogaa markaas transit ayaan ku ahay muddo dhowr saacadood ayaan haystaa buu yidhi dabadeedna waxaan go'aansaday inaanan aeroboortka iska fadhin oo ku caajisin magaalada aan soo yara eego waaniga taxi dhagti ku dhagay buu yiri waxaan ku yiri war magaalada meel may soo tisi kartaa soo bood buu yiri taxigii ayaan raacay buu yiri taxigii markaan raacay ayuu wuxuu ninku daartay muusig aan caadi ahayn waxaan ku yiri waxaan qalbigayga la hadlayaare fanaanna waa ahay muusiga noociisu waa maxay marka hore aan idin daara asaga taxigii waxa dhex maraya وعجيبك dabadana waan soo noqonaynaa mucjisadii baa noo soo socota iyo isbedelkii ku yimid aadaanka ayuu maqlayaa markii ugu horeysay dhageyso That time I think I really heard about Islam is with 9/11 when actually I started to pay attention to Islam. So the first person that told me about Islam very openly and the first person I remember is a taxi driver when I was in Abu Dhabi. I had to wait for a flight to catch Abu to Dhabi, the Philippines at 6 hours to kill. And I thought I should not stay in the airport, rather check the landscape and this. I didn't know about Abu Dhabi, so I asked the taxi driver, what can I visit here? And he said, there's a big white masjid, huge masjid, so I said, let's go. And on the way to this masjid, he started to play the radio, and there was this song that I really loved, and this music really loved in my ear. And I said, what is this music? It talks to my heart. I told him that. muusiga ayuu daartay buu yiri waxaan ku iri waa maxay muusigaanu wadnahayga ayuu la hadlayaa ma oran maskaxdu la hadlayaa ma oran meel kale la hadlayaa qalbigayga ayay arrintan u taabanaysaa waa maxay baan ku iri darawalkii baa jawaabay really loved in my ear, and I said, what is this music? It talks to my heart. I told him that. And he stopped the car and he said, brother, this is not music, it's the Quran. And he started to preach me about Islam. Music ma ahan waxa qalbigaaga u taabanaysaa ilaahay wuxuu yiri ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub xuska iyo dikriga ilaahay oo afka lagu hayo ayaa qulubta xasilooni deganaansho tuma'niina iyo sugnaan ay ku heshaa ya salaam saaxiibayaal sidaas markuu igu yiri ayay arrintu itaabatay ayuu yiri inaba arrintan caadi ma aha waxaan horay u maqlay ma aha in badan buu muusig ku dhex jiray iyo durbaan la tumanayo waxaas qulubta ma qaboojiya ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub ninkii dhalinyarada ahaa tagsiilaha ahaa ayaa waxa uu yiri wuxuu bilaabay markaas inuu dacwo iyo siiyo dabadeedna waa iska xiro waxaan ku yiri islaamkii ku aqoonay Soomaaliya isqarxinay ama halka ay yara kaadinayo laakiin waxa aad ii daartay inaba caadi ma aha xaaladiisu sidaas ayadoo ay tahay ayuu wuxuu u safrayaa maadaama uu inta badan socdaalkiisu badan yahay dalka Tanzania ayaan tagayaa ayuu yiri Tanzania marka uu tago ayuu dhalinyaro Afrikaan ah kubad soo la ciyaaraya ayaa markii ugu horeysay waxa lagu dhufanayaa aadaanka hore ayaan uga soo sheekeynay xaggan
كالي صلاة إمادة كالي ليبانو إمادة حدات مادان يا هديك الله جل جلاله هو مدوية فريق هذه وقدم بي الله صدر النبي محمد فرينتاس أيو آذان كوتا عدكي آذان كأيان مقلي ويري دوديرنا ماشي قرآن كتابتي وأن عد كلا تابر هورتين يكدي منا وعيال الحقي ويري مرة بعد أدي آذان يرغو راح يستي ويري مقل كاس آذانك لكن وحان إلي أيغا وولف ووحفي عنه إن المقلو لغي يستي ويري لكن ودين عرباد ويان وقو نكار وفرنسيس أسل كيسو بروباغاندadii maalintuu dhashay ilaa haatan lagu akhrinayay islaamku waa diin carbeed Pakistaanta iyo Carabta iyo dadka faqiirka ah qaata iyo European this is not for you this wax in badan loo sheegay ilaahay fadligiis dadka ugu fara badan ee diinta soo galay waayahan dambe waa dadka Yurub oo dhashay ama Mareykanka joogaan ama Yurub gudaheeda joogaan haddana ilaahay amoortiis dumar ayaa u badan dumarka xigmadu ilaahay u doortay asaga garanaya laakiin waxa kaliya maskaxdeeda ku soo dhacay waxay ahayd dumarku waa warshada soo saarta the next generation hooyada hadday muslim tahay jaaniska inay diinta kugu soo barbaariso is higher than hadaadan hooyada aysan muslim ahayn is almost zero hidaayadana ilaahay baa ayay si kastaba saaxiib yeelaha ahaatee wuxuu ka sheekeynayaa arrintaas aadaankii marka uu maqlay ayuu ka sheekeynayaa iyo wixii markaa sababay inuu shahaadada qaato xusuusno hore waxaan ku yiri mucjiso qur'aaniya ayaa la tusay hortiisa asagoo fadhiya ayaa mucjiso la soo istaajiyay taas ayaana ku qalcay buu yiri diintaanu inay ilaahay ka timid xaqna tahay dibnihiisa ayaad ka dhageysan doontaa walaal dhageysa aadaanka markuu maqlay wuxuu yiri let's go Southeast Asia, India, Pakistan is all in the south. So because of my work, I travel in all these countries. I live in all these countries. So shaqadayda awgeed wadamo fara badan baan tagaa buu yiri horaan in kuu sheegay wuxuu yiri ilaa 50 wadan buu tagay marka shaqadiisa waxa waa inuu travel gareeyo wadamo kale iyo dad kale oo la kulmo shaqadiisa qayb ka mid ah I was in the heart of the world and the azan was going on in most of the countries where I visited and it always made an impact on me. Like I remember one day I was playing soccer in Tanzania with some Africans and suddenly the azan started to play and I was like, wow, this is powerful, this is amazing, you know, I loved it. Then I went to Cyprus, same. The azan was playing in Nicosia and it impacted me. Like I felt pulled, but I thought it's not a religion. markale aadaanka ayaan ka maqlay buu yiri Cyprus markaan tagay markaan Tanzania tagay waa maqlay wadamadii muslimiintu ay joogeen oo dhan aadaanka ayaan ka maqlay markastana qalbigayga xasilooni iyo tumaaniina ayuu ku sugaa dhageyso mucjisada ku dhacday iyo quraanka uu kala kulmay For me, so good for them, but I thought it was a religion for Arabs. How were you convinced that Islam is 100% true? sidee ku ogaatay ayuu weydiiyay islaamku inuu yahay 100% xaqiiqo ilaahay ka timid oo dhab ah Two reasons why I believe that Islam was 100% true. One is laba sababood awgeed ayaan u xaqiiqsaday inuu quraankaanu ilaahay ka yimid islaamkuna dhab yahay just the fact because the Quran is the word of God and I realized that and I never knew that actually a lot of things that has been said in the Quran has been discovered only now or a few decades ago. wuxuu yiri waxa kamid ah in islaamka waxyaalo badan oo ilaahay kitaabkiisa ku sheegay oo xaatan science-ka lagu xaqiijiyay ayaa jira ayuu leeyahay waxaas oo si fiican uga dhageysantiin oo ogtihiin laakiin wuxuu soo wada quraankii maadaama bishii quraanka aan ku jirno dhageysan kalimadda ilaahay I couldn't believe that. Actually the Quran proved itself to me that it can. quraanka ayaa asagu isu kay cadeeyay buu yiri inuu ilaahay ka yimid sidee u dhacday arrintaas ku soco Can only be the word of God. It can only come from God and not the Prophet Muhammad. So one is because by experience, I experienced some miracles. So I'm going to share one with you. So I was searching about God and I was praying to God. And as I was making that prayer, mucjiso ayaan arkay buu yiri quraanka ah anigoo ilaahay raadinaya baadi goobaya baryaya oo quraanka akhrinaya ayaa mucjisada leeyahay as a Christian, still there were some words on YouTube about one ayat about the Quran in about the rain, and at the same time I was reading that ayat started to rain in front of my window for 10 seconds, really literally, like just like really only in front of my window, not everywhere. I was living on the subhanallah ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa xumaan oo dhan ka nasahan wuxuu yiri anigoo ilaahay baadi goobaya oo quraanka akhrinaya ayaa waxaan akhrinaya aayad quraanka ka mid ah oo ka hadlaysa roobka iyo sida ilaahay u keeno
dabadeedna indhahayga waxaa la ii tusay buu yidhi oo hortayda ka dhacday gurigayga meeshaan fadhiya daaqadda horteeda ayaa 10 second roob ka da'ay buu yidhi aayaddii qur-aanku akhrinayaa roob ka hadlaysay ilaahay buu baadi goobayaa roob baa da'ay dariska kuma di'inin xaafadda kale kama di'inin meel kale fog kama di'inin 10 second ayuu hortiisa ka da'ay 10 second oo uu roobkaas is haystay anoo aayaddii qur-aanka akhrinaya ayaan arkay dabadeedna xilligaasna Christian baan ahay buu yidhi waxaana ogaaday buuggan inuu xaq ilaahay u yahay ilaahay xaggiisana uu keenay fariintaana aniga si toos ah igu socoto The 30th floor. When I saw that and that I understood. Allah gave me the answer I wanted and I started to cry. I was like, I felt mar allaale iyo markii aan maqlay arkay buu yidhi aayaddii aan akhrinayay iyo roobkii waxaa ii caddaatay jawaabtii su-aashii aan raadinayay jawaabteedii inuu ilaahay siiyey oo ah fariintan mid aniga igu socota xaq ah ilaahay ka timid diinkaana inuu yahay diinkii ilaahay dabadeedna waan isdhiibay ayuu leeyahay uma ka sheekeynaya mucjisooyin kale laakiin labadaas mucjisadaas qur-aanka ku saabsan ayaa aad iyo aad ii soo jiidatay waxaana jeclaystay walaalahayga iyo walaalaha saaxiib Soomaaliyeed ee dunida daafeeda jooga maadaama bishii qur-aanka kariimka lagu jiro in aynu aan idiin soo gudbiyo muuqaalkan